بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بأمهد له إنه سورة قليي إنه السجون ما عندنا حفلة نحن ورجين تهوجان كدلدا لليرد السومالان وحمر لبعض مهد علنيا قدوميها حسبي وطني مدن عبد الرحمن عبد الله عرو فيصل على ورابه قدوميها حسبي قوعد ويسوي نجتجي مسؤولين حكومة السومالان وجوه الرئي وسير كدليرد عيارها وسير كشغالين تا arrimaha bulshada iyo qoyska marwahinda mas'uuliyiinta shirkadaha Telesom Somcable Dahabshiil golaha sideedaad ee xilku ka dhamaaday ee aan hogaaminayay 3 sano golaha sagaalaad ee uu hogaaminayo walaalkay Cabdicasiis Maxamed Jaamac dhamaantiin soo dhawaada marti sharafta jaamacadaha ururada maxalliga ah dhammaan cid kasta oo nagala soo qayb gashay milgaha iyo karaamada iyo maamuuska ay mudan tahay baan ku soo dhaweynayaa mahadnaq kadib muddadii aanu xilka haynay waxay ahayd waqti aad u xiiso badan xamaasad leh waxay ahayd waqti aanu gelinay inaanu ka qayb qaadano horumarka dalka haddaan nahay golihii sideedaad iyadoo xilka aanu gudanaynay uu ahaa waajib aanu si saarnay oo mutadaawacnimo ah is-abaabul ah ka qayb qaadashada qaranka horumarkiisa ah soonyo waa madal dhalinyaro sidii looga dhawaajiyey waa cududda iyo lafdhabarka Somaliland waa madal sharci oo jiritaankeeda waxaa damaanad qaaday dastuurka jamhuuriyadda Somaliland waa madal dhalinyaradu ay ku carbiso ku soo saarto hankooda ku hirgeliso wixii ay marba awoodaan ee ah inay taakuleeyaan dhalinyarada kale ee u baahan gargaarka iyo in la gacan qabto 3 sano ka hor maanta oo kale ayaanu xilka la wareegnay hoggaanka dalada Soonyo waqtigaas kulay waa taariikh daladu waxa ay ka soo kabatay khilaafyo waaweyn isku dhac ay abuureen xafiltanka doorashooyinka waqtigaas oo ay ka soo kabatay isla markaana dhalinyarada Somaliland ee Soonyo ay yaqiinsatay inay u baahan tahay page labaad oo ah midnimo isku si wuxudoon iyo in la mideeyo cududda dhalinyarada Somaliland markastoo la tartamayo waa la kala qaybsanaanayaa laakiin in hadafka weyn ee guud ee ah in dhalinyarada Somaliland horumar gaadho in loo midoobo lagu wada shaqeeyo waad ogtihiin haddii meesha khilaaf yimaado oo awrka reerka u dhaaminaya dhaawacmo taagta iyo tamartu way yaraanaysaa dalada markaas hawlaheedu runtii sidii loogu talagalay ee hore u ahaan jirtay may ahayn marka maanta anigu waxaan ka hadli doonaa 4 marxaladood Soonyo iyo marxaladii aanu kula wareegnay Soonyo iyo maxay qabatay muddadii 3 sanaha ee aanu xilka haynay maxaa caqabado iyo gaabis ka hor yimid muddo xileedkii golaha sideedaad ee aan hogaaminayay golaha sideedaad ee aan hogaaminaya maxay talo iyo tusaale iyo dardaaran siinayaan golahan maanta yimi waan soo koobi doonaa Soonyo annagu waxaan kula wareegnay iyadoo midaysan isla markaana baraarugtay laakiinse dalada haynteedu ay kooban tahay waqtiga hal mashruuc bay haysay mashruucaas waxa la oran jiray Voice of Youth sidaad ogtihiin madashani maaha madal macaashtoona isla markaana aynu sameeyno waxa la yiraahdo duugaal reeb ama dhigaal reeb mashruuca ay fulinayso 5% waxay galaan dhalinyarada 25% ee budgetka ka soo hadhana waxa la yiraahdaa hawl socodsiinta haday shaqaalaha tahay haday tahay shidaalada iyo kharashaadka yaala sidaas daraadeed markaad hal mashruuc hayso
awooddaadu way yaraanaysaa iyadoo shaqaaluhu aanay haysanin markaa runtii mushaharooyinka ay lahaayeen muddana aan qaadan ayaanu la wareegnay waxaan la wareegnay iyadoo moraalkoodu hooseeyo waxaan la wareegnay iyadoo hay-adihii la shaqaynayay ay dib u fadhiisteen kadib markii ay shaki galay hufnaantii iyo awooddii lagu yaqaanay soonyo kala qaybsanaan bahsanaanna ay timi marxaladaas ayaanu kula wareegnay intii aanu 3 sano haynay aan dowladda hogaaminaynay waxaanu ku soo kordhinay dadaal iyo firfircooni isla xisaabtan karti iyo hufnaan waxaanu ilaalinay dhexdhexaadnimadii dalladda iyadoo waddanka ay ka dhaceen doorashooyin aad u xasaasi ah dalladda Soomaaliya waxay ku dadaashay garabyadii siyaasadda inaanay ku dhex milmin isla markaana ay mar walba danta guud iyo horumarka dhalinyarada oo ay ka shaqeyso wacyiga dhalinyarada kor u qaado waxaan dib u qiimeynay qaabaynay isla markaana aanu wax ka bedel ku sameynay shuruucda dalladda oo dhameystiran qaar cusubna aanu soo kordhinay dalladda waxaan u hirgelinay iyadoo 2 sano ay dhacsaneed qorshaheedii strategic plan-ka ama qorshihii 5 sano ah iyadoo 2 sano dhacsan yihiin baan u nimi waxaan dejinay qorshe 5 sanadood ah oo dalladdu ku shaqayn doonto kororku iskama yimaado kobaca institutionku iskama yimaado laakiin wuxuu ku yimaadaa qorshayn han iyo hiraal iyo waxa doonayso baahida dhalinyarada iyo sida wax looga qaban karo run ahaantii muddadii aan xilka haynay waxaanu gaadhay oo aanu adeegyo kala duwan siinay dhalinyaro gaadhisa 12250 dhalinyaro adeegyada waxaa ka mid ahaa shaqo abuurka oo u kala duwan hadday tahay ganacsi abuurka hadday tahay tababarka iyo hadday tahay ardayda jaamacadaha oo loo diyaariyo waxa la yiraahdo work readiness skills ciyaaraha fudud waxaan wacyigelinta guud barnaamijyo kala duwan oo aan markaa soo hindisnay isla markaana aan u gudbinay hay'adaha wada shaqaynta la leedahay dalladdu waxay la shaqaysaa imka 5 hay'adood oo barnaamijyo soconaya ay la yaaleen waxaanu intii aanu joognay maalgelin u sameynay lacag ama aanu ku kharash gareynay dhalinyarada Soomaaliland 1,934,000 oo dollar mashaariic u dhiganta runtii kobacaasi sanad walba uu labanlaabay wax kalena kuma labanlaabayna wuxuu ku labanlaamayay dadaalka aragtida golaha fulinta iyo golaha hoggaanka oo iskaashanaya waxa la yiri qofka labadiisa daan baan iswaayin khilaaf uu imanaya waxa la isku khilaafayaa hawl gudashada waxa la isku khilaafayaa hadii wixii la calaamadsaday in la gaari waayo sidaas daraadeed shaqo joogto ah oo horumaraysa oo islaam laabaysa ayaanu runtii abuurnay waxa nasiib ah inaanu sameynay oo aanu hirgelinay in heshiis uu ka gaaro qaranku employment waxa la yiraahdo employment accord waxaana dalkii 10aad ee Afrika ee employment accord yeesha halkaas oo ay ku saxeexeen madaxweynaha wasaaradda shaqo-gelinta European Unionka Chamber of Commerce oo ah wasaaradda ganacsiga Soomaaliland markaa uu kiri afar rukun buu lahaa in dhalinyarada la jiheeyo shaqo abuur loo sameeyo in dhalinyarada loo maalgeliyo ee aan horumarkooda ku koobnaan oo kaliya deeq shisheeye iyo wax dal dabadeed inooga yimaada deeqaha shisheeye dalalkeena siinay waanu mahadnaqaynaa waxay doonayaan problemka inay halkan ku xaliyaan si aan problemku ugu imanin guryahooda oo aan dhalinyaradu ugu soo tahriibin ama aan dhibaatooyin amni u dhicin innagana waxa la inooga baahan yahay inaynu maalgelino dhalinyarada run ahaantii waxa noo qabsoomay oo aanu kor u qaadnay madalihii ama forumskii dalladda ay message-ka dhalinyarada ku gaarsiinaysay hoggaanka dalka loo doortay 2 jeer waxa noo yimid madaxweynaha 2 jeer kalena waxa noo yimid madaxweyne ku-xigeenka madalahaas waxaanu hor dhigaynay baahiyaha sida dhalinyaradu muhiimka u tahay sida loo baahan yahay in dhalinyarada loo maalgeliyo madalahaas iyo advocacy-gaas waxaa ka dhashay sanduuqa dhalinyarada Soomaaliland oo madaxweynuhu ku ballan qaaday 2018 February maalintii dhalinyarada Soomaaliland maalintaas oo aanu ka dhignay maalin qaran isla markaana
u noqoto dhalinyarada Somaliland taariikh iyo sugnaansho iyo in Somaliland halkaa ka sii socoto iyadoo mida sanduuqaas 200 kun baa lagu shubay 2 sano ayaa imika ka soo wareegtay in la hirgeliyo oo la isla qaato oo madaxweynuhu ka hadlo guul bay ahayd waxa ahayd wax laga shaqeeyay oo aan si yar fudud ku imanin daladu intii ay jirtay waxay kor u qaaday in volunteerismka bulshadu inay iskeed wax u qabsato in dareenka la geliyo 2017kii oo ah xilligii abaaraha daladu waxay gobolada oo dhan hirgelisay 1,000 volunteer oo ka qayb qaatay caawimada daryeelka dadkii jilicsanaa ee abaaruhu saameeyeen daladu waxay ka qayb qaadatay iyo 5 urur oo burca ka mid ah in cudurkii shubanka waqtiyadii 2007kii ka dilaacay burco inay wacyigelin samayso 8 gaari oo ambalaasyo ah 5 laangaruuslo oo codbaahiyayaal leh oo loogu talagalay in la gaarsiiyo fariinta saxda ah sidii dadku u badbaadi lahaayeen daladu waxay ka qayb qaadatay duufaantii sagar oo ay gaarsiisay deeq raashina bustayaal iyo isugu jira maacuun intaasba waxay ka mid ahayd in aan dareenka la qaybsano dhalinyarada ku waxyeelowday ama dhibaatooyinkaasi ay soo gaareen isla markaana mas'uuliyadda nasaaran ee mutadawacnimada aanu muujino dabcan meel shaqo ka socoto lagama waayo caqabado intii aanu xilka haynay qorshe hawleedadii hankii iyo hirgelintii dhalinyarada waxyaabo badan oo gaabisa ama xaggayga ha ka yimaado ama ma garanaysa cid aan wada shaqaynta leenahay ha ka yimaado gaabis dabcan wuu jirayaa bini aadan baynu u nahay waxaan qirayaa inaan dhagax dhigay basketball class caanood oo aan doonayay in dib loo dayactiro qorshahaygu wuxuu ahaa lacag 300 milyan oo miisaaniyadda markaa noogu jirtay inaanu ku caawino oo ku contribute gareyno garoonkaas muddo dheer iska daba wareeg kadib waxaan soo marnay jaranjaro kasta oo loo mari karayay dawladda waxaan isla garanay mashruuci baanu gornay waanu qiimeynay guddida qandaraasyadaanu marinay November 2018kii markay xisaabaadka gaadhay runtii noomay suurtagelin lacagtaas dawladdu sii deyso iyadoo cashuuran ayay waqtigu ka dhacay annagu intii aan daba geli karaynay waan daba galnay horta dhagaxa beentaa waan dhigay waxaan rajaynayaa hoggaanka iga dambeeya inuu hawshaas halkaa ka sii wado waxaanu isku daynay inaanu qorshayno qaabayno hanaanka volunteerismka ee Somaliland annagoo qornay Somaliland National Volunteerism Program policy-giisina leh isla markaana waxaan isku daynay inaanu u samayno database isla markaana inaanu internet based ka dhigno muwaadinka Somaliland u dhashay ee doonaya waqtigiisa inuu wax xun ku darsado Somaliland horumarkeeda inuu helo halkuu ka soo gelin lahaa expression of interest-kiisa ninkii ra'yi haya aragti haya halkuu soo gelin lahaa dhalinyarada u baahan placement-ka iyo shirkadaha inay ka qayb galaan oo shaqada ku bartaan halkay ka soo codsan lahaayeen shirkaduna halkay kaga jawaabi lahaayeen ay ku aqbali lahaayeen database-kaas noomay hirgelin dhowr shirkadood baan la xidhiidhnay gaabiska bini'aadanimo shirkadaha oo mashquulsanaa iyo technology-ga inagu kooban shirkad nin Cabdirashiid leeyahay oo runtii aqoon badan leh waqti badan runtii markaanu gelinay maynoo hirgelin bini'aadan baynu nahay waa waxyaabahan Cabdicasiis uga tegi doono waxaanu ka qayb qaadanay oo runtii dadaaladaanu gelinay ku jiray in la yeelo siyaasadda qaranka ee dhalinyarada Somaliland siyaasaddaas wasaaradda dhalinyarada hormuudka ahayd annaguna waanu kala shaqeynay way qoran tahay English iyo waxay Soomaaliba way ku qoran tahay laakiin siyaasaddaas weli golaha ma hortagin lamana ansixin dhalinyarada Somaliland waxaan u baahan tahay siyaasad qaran oo baahiyahooda dhibaatooyinkooda higsiga wasaaradda intaasba in la helo taana runtii wasiirku wayna la fadhiyaa halkay marayso wuu inaga update garayn doonaa ummadaha xadaaradda leh hormaray waxa u ah tusaale qofka wixii u qabsoomayna inuu sheego dhacdooyinkana inuu runta ka sheego
runtii maalin hore xaflad hore ka hadlay sanduuqan daba joogay waqti badan aan gelinay saxaafaduna way taxaano marka laba qof wax isweydiiyaan runtii way ka faa'iideystaan marka waxaan doonayaa inaan mar labaad caddeeyo anigu ma jecli inaan qof ahaanta wasiirka wada shaqaynta aan la soo lahayn intaa iyo shakhsiyadiisa toonna inaan wax ka sheego laakiin maxaanu ka gaabinay waxaanu ka gaabinay sanduuqii dhalinyarada ee 2018kii madaxweynuhu yidhi sanduuq accountkiisa wuu furan yahay lacagtiina waanu ku shubnay in uu ilaa maanta aanu hirgelin dhalinyaradana aanu weli bini gaadhin sababtee buu hirgeli waayey kalsoonyahaan maxaanu ka qabanay yaa nagala shaqeeyey halkee gaabisku ka yimi maanta maadaamaan xilka ka tegayo in badan dhalinyarada somalilan sanduuqa iga soo wareysatay gobollada markaan tagana aan ballanqaadka ugu weyn aan samaynayay uu ahaa sanduuqaasaa la samaynayaa sanduuqaasi wuxuu noqon doonaa sanduuq aanay soonyo maamulin keligeed laakiin stakeholder ka tahay wasaaradaha dhalinyarada siiya adeeguna ay stakeholder ka yihiin chamber of commerce-kuna stakeholder ka yahay oo la sameeyo wax la yidhaha domestic investment in la sameeyo sidii dhalinyarada loo horumari lahaa aniga hankaygu wuxuu ahaa inuu sanduuqaasi noqdo multimillion facility waa la gaari karayey laakiin hirgelintiisii runtii markii ugu horreysay waxaanu ka bilownay madaxtooyada qorshaan u geynay consubnayd baan u geynay muddaanu iska daba ka wareegaynay markii dambe waxaan ku idhi annaga intaasaa awoodi naga tahay diyaarinteedii wataa wixii aa ku darsaana ku dara hadalka madaxweynuhuna waa digreeto bal hawshaasaa usoo fududayn kartaan usoo fududeeya mar dambe oo 2019kii ah ayaa annaga waraaqi noo timi wasaaradda maaliyadda inooga timi shir baana loogu yeedhay waanu u tagnay qorshihii baanu u geynay 3 shiroo dambaa ka dambeeyey shirkii ugu dambeeyey waxaan ku gallay annagoo 3 wasaaradood iyo soonyo ah wasaaradda shaqogelinta wasiiradii markaa joogay saacad wasiir hinda wasiir boos anigoo ah soonyo ka socday agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta inteedaasaanu ahay waxaa la isla qaatay in agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo soonyo isla soo eegaan qorshaha iyo sharciga uu ku shaqaynayo sanduuqaasi waanu isla soo eegnay waanu ballannay waanu soo gabagabaynay waanu soo tafatirnay mar labaad waxaan ku celinay wasiirkii noo yeedhay oo ahaa sacad waanu u tagnay waanu u barsant garaynay run ahaantii wasaaradihiaan sugaynay wasaaradda dhalinyarada ayaa inoo iman weyday anigu uma yeedhin laakiin waa naloo wada yeedho oo sacad baa noo wada yeedhay waxaan markaa war ku helay markii noo iman waayeen wasiirka waanu la doodnay sacad idinkaa noo yeedhay in dhalinyarada somalilan la maalgeliyo oo sanduuqani muhiim yahay waanu isla qaadanay conceptkii waad aragtaan oo saacadoo adaaba dee sanduuqyada yaqaani SDF kana sameeyey hadday wax ka dhiman yihiin waa kaana kuu barsad garayna wax ku dar haddii kalena dee waxaan ha socdo annagu haddii ay maanta intaan xilka hayo hirgeli weydo waxaan ballan qaadaya inaan somalilan u sheego sanduuqaasi sababtuu hirgeli waayey marka waxaan war dambe ku helay madaxtooyadii markii hore aanu kala soo quusanay in la yidhi garyaqaankeedii baa loo dhiibay sharci yaqaanku la yaalaa sharci yaqaanku goortuu dhammaynayo goorta loo dhiibay oo ah markaa kulankaas naloo iman waayey kadib oo aan u aragnay wixii markii hore nalala bilaabay in haddana weji kale loo yeelay sanduuqa waxaan jecelahay sheekadiisu aniga waxa weeyaan waa waxyaabaha noo qabsoomi waayey dowladda somalilan waxaan ka codsanayaa wasiirka iyo wasaaradaha fadhiya cabdicasiis maxamed jaamac ayaa xilkii la wareegaya conceptkii iyo shaqadii aanu soo qabanayna isagaanu ku wareejinaynaa annaga wixii aanu soo qabanay iyo sanduuqa asaaskiisii in la ballan qaado ayaa noo ah sumad hirgelintiisana insha allahu waxaan u rajaynaynaa golaha 9aad inay ku guulaystaan anigoon hadalka dheeraynayn jeclayna inaanan qofna aan shakhsiyadiisa duraan jeclayn waxaan doonayaa inaan talo iyo dardaaran siiyo golaha cusub gudoomiyaha cusub waxaan u rajaynayaa inuu guulaysto guushiisu waa guusha soonyo waanan ku garab joogi doonaa insha allah waxaan leeyahay waxaad haysataa waxa ku saaran mas-uuliyad ballaaran oo u baahan deganaan kafiirsi iyo xogogaalnimo dalladdu meel fiican bay maraysaa
meel maanta mashaariicdeedu ay kor u dhaafeen 5 mashruuc ayay maraysaa meel aadan maanta ka warwaraynin mushaharkii iyo kharashaadkii hoose ayay maraysaa meel ay maanta adeeg gaarsiinayso dhalinyarada ayay maraysaa laakiin wali waxa la yidhi lama eego haddii aad eegto koobka haddii haaf ku jiro haafna maran yahay lama soo horreysiyo haafkaa maran laakiin haaf baa ku jira haafkaa ku jira waxa weeye inta ka dhimana si aad ugu dari lahayd markaasaa laga fikiraa optimistic baan kuu rajaynayaa inaad noqoto isku wadka golaha ayaan kuu rajaynayaa waxaan kuu rajaynayaa inaad guulaysato cabdikariin axmed mooga hadalku halkaa ka yidhi waan la qabaa dalada Sonya reform bay u baahan tahay annagu waxaanu sameynay ururada ku jira qayb ahaan dhammaantood waan soo aasas gareynay qayb baa dhiman qaybta reportkoodii wuu dhammaystiray qaybta dhimanna in la soo aasas gareeyo la soo eego kuwii la kicin karay ee la dhisi karay in la dhiso kuwa aan la kicin karayn ee aan la dhisi karina in ururada iminka soo baxay dhalinyaradu abuurtay dalada fursad loo siiyo inay ka mid noqdaan aad baan ugu mahad celinayaa cid kastoo ila shaqaysay oo ay ka mid yihiin wasaaradaha aan magacaabay golihii hore ee sideedaad oo runtii aanan uga mahadnaqayo midnimadii iyo dadaalkii iyo taageeradii ay la garab istaageen marxaladihii adkaa ee u baahnaa go'aanada adag iyo waqtiyadii aan soo marnay dhalinyaradu waa lafdhabarta Somaliland waa mudnaanta qaranka haddaan la jihaynin waxay noqon doonaan kuwa looga yeedho meelo kale oo loo gacan haadiyo haddii hal abuur iyo jihayn iyo waxay ku mashquulaan aynu u abuuri weyno waxa loo abuuri doonaa jihayn iyo mashquul iyo meelo kale ayaa looga gacan haadin doonaa danta guud waynu isku dhaliilaynaa danta guud waa reerahaynu ka taagnaanaynaa qof kastoo mas'uul maanta ummadda u ah looma baahna inuu ka cadhoodo danta guud marka lagala hadlo dantaynu issueskaynu ka hadlaynaa laakiin ashkhaasta ka hadli mayno ceebayna mayno aad iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu